waan ku salaamay saaxiib. Qofku waxa ugu bixinta badan yahay oo waxa uu isagu hore u soo waayay. Dadka jaaskaas ah ee waxay u baahnaayeen laga xarimay si deeqsinimo leh oo dabaka warwar leh ayaa ay u bixiyaan waxaas maadaama ay garanayaan qaraarka ay leedahay wax waayidu amba qofka saa'idka wax kugu quuraya waxa uu doonayaa inuu naftiisa ugu magdhabo wixii isagu hore u soo waayay. laga yaabaa qofka sidaas waalidaha ku jeclaaday inuu doonayo inuu ku yiraahdo in badan ayaan ku taamayay inuu qof ii jeclaado sida aan ku jecelahay. saaxiib, qof kasta oo marka ay dhibi ku haleesho ku garab istaaga muruga kama madna. laga yaabaa inuu garanayo qaraarka ay leedahay inuu qofku murugoodo oo aanu helin cid garab istaagto murugadiisa la wadaagta. qof kasta oo wax ku siiya maha hanti leh, laga yaabaa inuu si dhab ah u dhaafin yahay xanuunka ay leedahay inuu qofku wax u baahdo oo aanu helin. qof kasta oo madaxa ku salaaxaya macnaheedu maaha inuu walwal iyo walbahaar ka maran yahay. laga yaabaa inuu doonayo inuu habkada Ilaahay u baryo oo isagoo aamusan oo madaxa ku salaaxaya uu qalbiga ka leeyahay Ilaahay waa anigaas oo dadka warwarka la qaybsanaya ee madaxa u salaaxaya. anigana adigu madaxa ii salaaxo warwarka iyo idaari. noloshani way adag tahay saaxiib. qof kastaana waxa uu dhankiisa ula daala dhacaya dagaal aan ciidina ka warhayn. qosalka ilaa guusaha la qaawinayo waxa ku qarsoon dhaawacyo aan bogsoon. muuqaaladaas nimcada ee aad arkayso waxa ka dambeeya waayitaan laxjab ah. xataa qoraalada jacaylka ee aalaaba waa tabid iyo xiise loo qabo mid la jecel yahay oo la sugayo. dadku waxay wax ka qoraan in ka badan intay wax ka qoraan waxay haystaan. si dhib yar dadka ku dhaafo rafaadkaad kaydka ugu sii darin hana noqon mid dadka ka harka un muuqaalkaas guud ay muujinayaan. nabaadiina saaxiib.